madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku tilmaamay cunaqabataynta dalalka reer galbeedku ku soo rogeen kadib duulaankii uu ku qaaday Ukraine ay la mid tahay ku dhawaaqis dagaal. Putin waxa uu ka digay isku day kasta oo aag duulimaadyada ka caagan looga dhawaaqay Ukraine in loo arki doono ka qayb qaadashada dagaal hub la isku adeegsado. Wuxuu sidoo kale ku gacan saydhay in xaalad degdeg ah laga dhawaaqo Ruushka. Putin ayaa hadalkani sheegay xilli uu la hadlayay koox haween oo ka tirsan macad qaabilsan tababarada dhanka duulimaadyada oo la yiraahdo Airflot kaasi oo ku yaala meel u dhow magaalada Moscow. tan iyo markii uu bilaabmay duulaanka Ruushku 10 maalmood ka hor, reer galbeedku waxay ku soo rogeen Ruushka cunaqabatayna dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la xayiro hantida uu Master Putin ku leeyahay dibadda iyo in tiro ka mid ah bandhigyada Ruushka laga saaro nidaamka lacagaha caalamiga ah la isugu diro ee Swift-ka. intaa waxa dheer, shirkado badan oo caalami ah ayaa joojiyay shaqadii ay ka hayeen Ruushka, waxaana ka mid ah shirkadda Sara, Baybal iyo Samsung oo sabtidii ku dhawaaqay inay hakiyeen hawlihii ganacsi ay ka qaban jireen Ruushka. cunaqabataynta dhaqaalaha ee lagu soo rogay Ruushku waxay horseedaysaa in qiimaha lacagta dalkaasi hoos u dhaco. waxay taasi ku qasabtay bandhigyada Ruushka inay laabaan lacagihii dulsaarka ahaa. Putin waxa uu qiil u raadinayaa duulaanka uu ku qaaday Ukraine, isagoo ku celcelinaya hadalkiisii ahaa inuu doonayo inuu difaaco bulshooyin ku hadla afka Ruushka ee ku dhaqan halkaasi, isagoo ku andacoonaya in hubka dhigis laga samaynayo halkaasi iyo in dhaqanka naasiga laga saaray Ukraine, isagoo ka jawaabaya eedeymaha falanqeeyayaasha arrimaha gaashaandhigga reer galbeedka ee ah in ololaha militari ee Ruushku uu u socdo si ka yar sidii la filayay. ayaa waxa uu yidhi madaxweyne Putin, ciidankayagu waxay fulin doonaan dhammaan howlihii loo igmaday, shaki kama qaba taasi, wax walba waxay u socdaan sidii loo qorsheeyay. Putin waxa uu sheegay in dagaalka ay ka qayb qaadanayaan ciidamo tababaran isla markaasina aanay jirin askar la qoray, inkastoo ay jiraan warar la isla dhex marayo oo ku saabsan arrintaasi. hogaamiyaha Ruushku waxa uu sheegay in dadaalada lagu doonayo in aag duulimaadyada ka caagan looga dhigay Ukraine uu Ruushku u arki doono ka qayb qaadashada dagaal hubeysan. dhankiisa madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku dhaleeceeyay gaashaanbuurta NATO inay meesha ka saarto aag duulimaadyada ka caagan in laga dhigo Ukraine. waxa socda dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in lagu joojiyo dagaalka Ukraine. wasaaradda gaashaandhigga ee Ukraine oo shaacinaysa warbixinteedii maalinlaha ahayd ee ku saabsan duulaanka Ukraine ee uu Ruushku ku soo qaaday ayaa waxa ka mid ah qodobada ugu muhiimsan: waxaan burburinay 88 ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee Ruushka tan iyo markii uu bilowmay dagaalku. waxaan gacanta ku dhignay tiro ka mid ah duuliyayaasha Ruushka. militariga Ukraine waxay difaacayaan magaalada dekedda ee Mariupol. waxaan Ruushka ka qabsanay qalab. sidoo kalena waxay sheegeen in ciidamada Ruushku ay ka niyad jabeen sida awoodda leh ay isaga caabinayaan ciidamada Ukraine.